iskuulka Imaam Shaafici oo kamida iskuulada ugu waaweyn gobolka Sool ahna iskuuladii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay magaalada Laascaanood gudaheeda ayaa munaasabad ballaaran u qabtay boqolaal arday oo iskuulkaasi ka qalin jebinaysay sanadkani. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda qaybaha kala duwan ee iskuulkaasi dhigata, waalidiin, aqoon-yahano, culimaadudiin iyo waxgarad. Dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay badankooda ayaa sheegay inay ka soo baxeen iskuulka Imaam Shaafici oo kamida iskuulada sida weyn ay u qadariyaan dadka waxbarashada ku shaqo leh ee ka shaqeeya gudaha magaalada Laascaanood. Munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay maamulaha guud ee Imaam Shaafici oo tilmaamay marxaladii iskuulkaasi uu soo maray macallimiinta iyo waalidiin iyo waxgarad, waxaana halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha koowaad, labaad, saddexaad galay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool, ganacsato, culimaadudiin iyo dhaqaatiir. madrasada waxaa la furay bishii 6 1996 waxay ahayd waqti wadanka ama gobolka ayna ka jirin wax madrasa nidaami ah oo laga baxo oo arday intay ka qalin jabiso dugsi sare ma jirin, jaamacado ma jirin, dugsiyo dhexe ma jirin. waxaa jiray oo kaliya hal iskuul oo Ilaahay ha u naxariistee Salabaan Ciise Salabaan Dheere uu markaa gacanta ku hayo maamulo ka ahaa. waxaa ka baxay 16 dafcadood 23 sanadood u horeeyay ardayda aan ku bilownay waxay fasalka 6aad 7aad iyo 8aad intay ka baxayeen cid kama bixin. marka 16 sano ka dambeeyay laakiin arday baa sanad walba ka baxaysay. marka la isu geeyo cadadkii ardaydii ka takharrujtay waxay noqonayaan 2400 oo arday. anta oo aad aragtaan midhaheedii waxa ay ka kooban tahay 2 dhisme oo waaweyn, waxay ka kooban tahay dhowr iyo 20 fasal, waxay ka kooban tahay ardayda hadda dhigata oo gaadhaysa 559 gabdhood iyo 805 wiil. marka la isu geeyo waa 1364 arday. waxa ka shaqeeya hadda 31 qof oo isugu jira macallimiin, maamulayaal, ku-xigeenno, sekreteero, nadiifiyayaal iyo waardiyayaal intaas u qaybsan. ardayda waxaan kula dardaarmayaa 4 qol kaliya. 4 qol waxa weeye haddaad 4 samaysid inay qofna iska hor imanay. waxa iskuulka aad tagtid waqtigiisa ilaali. iskuulka aad tagtid duruuskiisa ilaali. akhlaaqdaada ilaali, duruusta lagu dhigay sida lagu dhigay uga soo bax. waalidiinta waxaan leeyahay qofka 2 meelood baa laga quudiyaa, maskaxda iyo jirka oo caloosha ah. haddii aad awal ka quudin jirtay caloosha qura, maskaxdana ka quudi. maanta wuxuu u baahan yahay qarashkii hore qarashka badan. salaamu calaykum. khitaabyo ama isbiisha dhaadheer oo luqado kala jeedinaya tababaran muuqaalkan quruxda badan iyo khamiisyada iyo xijaabka iyo ka kooban ee horteeda ka muuqda. intaasoo dhan waxay runtii igu abuurayaan dareen aad u qiimo badan oo aan la dareemayo guud ahaan baad waxbarashada gaar ahaan ee iskuulkan. marka hoos loo sii degana dafcadda maanta baxaysa ee qalin jabinaysa ee dugsiga dhexe ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka dhigo kuwii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfaca. anigu waxaan ahaa dufcooyinkii ugu horeeyay ama dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisa madrasadan idinku maanta aad ka qalin jabiseen, madrasatul Imaam Shaafici. bal dugsiga dhexe waxaanu ahayn qoladii lagu furay, annagana lagu furay. ilaahay mahadii waanu ka aflaxnay, waxayna noqotay meel aanu ka anbaqaadno oo heerarkii kale waxbarasho aanu uga gudubno. waxaan ku aqaanaa 2 arrimood runtii oo ah aqoon iyo akhlaaq. ardayda ka soo baxda dumaan runtii muddo dheer waxbarashada ku jiray, waanu qiimayn karnaa ardayda iskuullada ka yimaadaan meelaha ka soo baxaan. anaan faaniga ahayn iyo dhehnaga ahayn runta markaan sheego xaqiiqatan akhlaaq iyo aqoon baan ku aqaanaa. waxaan kaloo naqaanaa intaan haddeer muu sheegay ninka la yidhaahdo maahir waa runtii jireen ardaydii hore oo ahayd ardaydii ugu horeysay ee abuurta urur ay ka midaysan yihiin ardayda iskoolka intii ka baxday iyo inta ka soo bixi doonta insha Allah billahi kariim.
oo ururkaas oo la magac baxay USI oo u taagan United Student Imam Shafi'i. Education. As a matter of fact, education is a progressive method which you can benefit by what's essential or important. So education has many advantages. For example, if the person knows well about education, he or she has really been able to defend themselves. As English proverb says, never too old to learn. إخواني فلنجدد وعدا قطعناه على أنفسنا ونصدقه بأفعالنا بأن نكون لبنات صالحة وإضافة فاعلة في مجتمعنا وأوصمة شرف بهذه الوطن الذي أرسل الله الانتماء إليه. المن والهوى والحب والسلوى. المشكلة انتهت والناس اتحدت والأوضاع تحسنت والنعمة تربعت فلا حبد ولا رصاص ولا قتل إلا في قصاص ولا دقدق ولا بعبع ولا قمقم ولا شعشع ولكن أمن وسلام وحب ووئاب. قد نرجع إلى البلد فنشبع فلا جوع ولا وجع ولا بؤس ولا باس ولا توق ولا نعس. مرحبا بكم في المدرسة الإمام الشافعي لتشاهدوا جهود نخبة من أبنائكم هم يعزفون على عتبات الأمل الجذاب فكأن لسان حال هؤلاء الشباب ومقالهم يقول صغمالي وأنطلق إلى الغايات أستبق وسبق اليوم إيماني بغير الله لا أثق إذا ما الليل قد ولى بعده الغسق تأمل سوف تبصرني مع الإصباح أنبثق ويرسم منهج التوحيد للأحزاب والفرق. عبد الكريم نورل، Somali Channel، مقالة الله سبحانه.